بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو بكر محمد يلحو إن شاء الله تعالى عاوة وحين قادين عشر في الحد كاسو كسر في سن لايلج وذا شاكيسوي لو قف بعض هذا يقف كبدي واء قف كلامنا وبي لو وقف حلقة تاجنا وصل هذا وذا شاكيسني وكلوي waxay ka hadlayaan wuxuu noqon doonaa months of the year ama bilaha sanadka ayuu ku saabsan yahay cashirkani wayahay inaad ka hore aad soo fahamtay rajayna markaad ka soo fahamtay halka aan fiirino markani how about qofka koobaad ba su'aal bixinaya oo qof kale ba uu diriyay how about if we talk about months of the year ka waran hadaynu ka hadalno bilaha sanadka how about ka waran if we talk about hadaynu ka hadalno months of the year wax ku saabsan bilaha sanadka how about if we talk about months of the year ka waran hadaynu ka hadalno wax ku saabsan bilaha sanadka diba ku jawaabi it is quite interesting topic waa mawduuc yara la xiiseeyo waa mawduuc xoogaa la xiiseeyo mawduuc xiiso leh yani saas uga jeeda it is quite interesting topic waa mawduuc weey interesting waa xiise it is quite interesting topic waa mawduuc yara la xiiseeyo ama mawduuc la xiiseeyo marka casharadeenna insha Allah taala mar waxay noqon doonaan grammarka ama naxwaha luqadda Ingiriisiga mar waxay noqon doonaan words eraya ah marna waxay noqon doonaan lessons ama dialogues wada sheekaysiyo ama history aan dhaho taariikh waxa uu jeedaayay sheeko oo kale waxyaabahaas noocaas ay noqon doonaan insha Allah taala marka qofka eba su'aal wadi wuxuu dhahay how many months imise bilood ayaa are there in the year sanadkii ku jira how many months imise bilood ayaa are there ku jira in the year sanadkii how many months are there in the year saas isku qabanaysa how many months are there in the year imise bilood ayaa ku jirta sanadkii months biloway yearna waa sanad how many months imise bilood ayaa are there in the year ku jira sanadkii halkii sano yani imise bilood baa ku jira there are waxa ku jira ama jira 12 months 12 bilood the year sanadkii there are waxa jira 12 months 12 bilood in the year sanadkii there are 12 months in the year waxa jira 12 bilood sanadkii ebaas ashudin waxay tiri can you tell me mid ii sheegi kartaa their names magacyadooda can you tell me mid ii sheegi kartaa their names magacyadooda can you tell me their names mid ii sheegi kartaa magacyadooda yes biba jawaabi yes ha I can tell you one ku sheegi karaa their names magacyadoodu they are waxay yihiin yani 12 bilood bay rabtaa markaan ay sheegto waa biye they are waxay yihiin yani 12 bilood waxay yihiin January February March April May June July August September October November and December yes I can tell you how aan ku sheegi karaa their names magacyadoodu they are waxay yihiin January waa bisha koobaad February waa bisha labaad March ama Marso saas aan akhrina waa bisha saddexaad April waa bisha afraad May waa bisha shanaad June bisha lixaad July bisha toddobaad August bisha sideedaad September bisha sagaalaad October bisha tobnaad November bisha 11aad and December iyo bisha maxay 12aad eba jabto eba su'aal wadiiso waxay tiri what month is this bishani waa tee what month is this bishani what month is this bisha hadda aynu ku jirno waa bisha saas ugu jeedaa macna what month is this bishani waa tee way bishan ku jirno waa tee it is January waa January it yani bishi weeye it is January waa bisha January yani hadda ka hadlayaa mugti hadda laakiin markii lagu diinay su'aasha xilliga joogtada ku sheeg doonta hadda joogto December baadhi hadda joogto March baadhi it is January laakiin hadda it is January eba su'aal wadiiso waxay tiri what month was the last month bisheebe ahayd bishii ugu dambeysay taabay ahayd months halkaas hajba ka maqaya halkaas hajba raacinaysa what month bisheebe was the last month bishii ugu dambeysay bisheebe ahayd yani su'aashaas ayay wadiisay biba waxay jawaabtay waxay tiri it was December waxay ahayd December bishii December bay ahayd yani bishii 12aad hadana koobaad ugu jirnaa soo bisha ugu dambeysay sanadku waa bisha December tan bisha ugu horeysa sanadkan waa January hadda sana ugu jirno kala weey oo markaan video sharaxaya eba waxay su'aal wadiisay what month bisheba is the next month bishani xigta bisheba tani xigta yani bisha hadda ku jirna bisheba ku xigta what month bisheba
is the next month bishani ku xigta marka what month is the next month bishani bishee baa xigta biba waxay jawaabtay mitri it is February ayaa xigta yani bisha February ayaa ku xigta wiil marka markuu soo gudbiso waxay tiri goodbye hadaba nabadgelyo mac salaamo biba waxay tiri see you again aragtay dambe see you again yani markii la iska doona way ila liqaa ila aakhir meeshii bihi jira arabi ama ila liqaa arabi Soomaali marka see you again aragtay dambe ya aragtay marka kuma ekee marka la iska doona way hamran ku soo celiyay waqtigan way hayaaye ده lesson لحد أما lesson 6 10 لحد ده جلد conversation لما نعتبر ده شيء كويس هو about if you talk about mental health ده كورنا دينه كهذا النوع وحكوا استفسام بلا سنتك it is quite interesting topic هو موضوع يرى الحسية ما حسية لوجيه how many months are there in the year إمسا بلوت يا سنة في كجرتا there are 12 months in the year وح كجرتا أما جرتا لبي توم برد سنتك can you tell me their names مي شكرتا معي yes ها I can tell you who شكرا their names معي they are وحيين January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Next, what month is this? Bishani wate, it is January. Bishani wa January. What month was the last month? Bishabed bishi yugu missing. It was December. December bayed. Bisha December bayed. What month is the next month? Bishani bishi hekta wate. Yani what month is the next month? Bishani bishabe hekta. It is February. Waxa xiga bisha February. Goodbye. Hadaba mid maca salaam nabadgelyo kalwiye. See you again. Kulanti dambe. Hadaba intaasaan kusoo gogweynay casharkeena lixaad luqadda Ingiriisiga wada sheekaysi ku saabsanaa way ma casharkii hagaagay la dhimahayo wabillahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.